بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعنا wanaagsan ku soo dhawaada daawadayaal warka halku news qodobada ku daawan doontaan waxa ugu dooran diyaaradaha Mareykanka oo gobolka Bay ku daadiyay waraaqa lagu baadigoobay sargaal sare oo ka tirsan Al-Shabaab si hoosan oo la shaqeynayay Mareykanka 22 qof oo ku dhimatay degmada Jalalaqsi iyo dad kale oo il daran kadib xarun halkaas ka dilaacay ammaanka dhuusan marheebo maanta aad loo adkeeyay cabsi ka jirta halkaasi dooxada goobay oo maalintii labaad gubanaysa iyo wararkii ugu dambeeyay ayaan halkaasi idinkaga hayaa danjiriya mamoto hal ku amaanay Axmed Madoobe kadib kulankoodii iyo booliiska Soomaaliland oo gacanta ku dhigay nin gacan ku dhigla intaad maqasheen wixii ahaayeen qodobada ugu waaweyn wararka caalamka taariikhdu waxay tahay 15 bisha labaad ee Febraayo sanadka 2020 intaad maqasheen iyo qodobo kale ku soo dhawaada saaxiibayaal markaana aan ku bilowno koonfur galbeed gaar ahaan gobolka Bay maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa waxa xaray lagu daadiyay waraaqa lagu baadigoobay sida la sheegay nin u dhashay Mareykanka oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab waraaqahan oo lagu daadiyay magaalada Dinsoor waxa lagu raadinayay nin lagu magacaabo Jihad Sarwaan Mustafa oo u dhashay Mareykanka kana tirsan kooxda Al-Shabaab oo ku xiran Al-Qaacida ninkan ayaa waxa madaxiisa la kordhigay lacag dhan 5 milyan oo dollar oo la sii doono cid kasta oo keenta xogtiisa sida lagu qoray waraaqahaas lagu daadiyay magaalada Dinsoor dadka ku nool Dinsoor ayaa saaki waa barigay ku soo toosay waraaqahan oo lagu daadiyay inta badan magaalada waxaana la rumaysan yahay inay soo daadiyeen diyaarada Mareykanka laga leeyahay oo xalay saq dhexe kor heehaabay Dinsoor waraaqdan ayaa lagu sheegay tilmaamo lagu garan kara ninkan waxaana kamid ah inuu nawar weyn ku leeyahay gacanta midig indha buluug ah sidoo kale uu yahay nin ku hadli karo luqadaha Carabiga Ingiriiska iyo Soomaaliga dawladda Mareykanka ayaa bishii December sanadkii 2019 sheegtay in Jihad Sarwaan Mustafa madaxiisa kordhigtay lacag dhan 5 milyan oo dollar Jihad Sarwaan Mustafa ayaa la rumaysan yahay inuu hadda yahay qofka Mareykanka ah ee ugu darajada sareeya gudaha Al-Shabaab ninkan oo ah 39 sano jir ayaa waxa uu ku dhashay gobolka Wuzon ee dalka Mareykanka 28 December 1981 waxaana muddo ku raad jooga hay'adaha sirdoonka Mareykanka ee FBI-da iyo CIA-da dawladda Soomaaliya iyo maamulka koonfur galbeed wali wax waraah kama soo saarin waraaqahan ay diyaaradaha Mareykanka ku daadiyeen Dinsoor markaana dhuusamareeb wararka naga soo gaaraya galgaduud ayaa sheegay in maanta xaaladda dhuusamareeb ay tahay mid degan taasoo saacadii la soo dhaafay amnigeeda ay si xooggan u adkeeyeen ciidanka amniga ee magaaladaasi askar fara badan oo daadsan jidadka ayaa lagu arkayaa wadooyinka muhiimka ah ee dhuusamareeb kuwaas oo dhaqdhaqaaqyo cusub ka wada halkaasi sidoo kale wararka qaar ayaa sheegay in laga cabsi qabo in dibadbaxyo ay ka dhacaan gudaha magaalada kuwaas oo ay dhigayaan taageerayaasha madaxweynaha Galmudug ee garabka Ahlus Sunna wal Jameeca Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan isu socodka dadka iyo ganacsiga ayaa sidoo kale lagu soo waramaya inuu dib u soo laatay kadib muddo kooban oo hakad ku jiray khamiistii ayay markii ciidamada ka tirsan kuwa nabad sugidda Soomaaliya ay soo istaag ku sameeyeen dad iskugu jiray odayaal haween iyo caruur oo doonayay inay gudaha u galaan gudaha dhuusamareeb kuwaas oo kamid ahaa taageerayaasha madaxa xukuumadda Galmudug sheegtay inuu yahay madaxweynaha Galmudug Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan kana yimid dhanka magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud xaaladda Galmudug ayaa wali isjiid ku jirta kadib markii uu khilaaf hor leh ka dhashay doorashadii hoggaanka maamulkaasi dhawaan ka dhacday dhuusamareeb markaana Hiiraan 22 qof ayaa ku dhimatay degmada Jalalaqsi kadib xanuun halkaas ka dilaacay wararka naga soo gaaraya gobolka Hiiraan ee bartamaha dalka Soomaaliya ayaa sheegay in cudurka shuban biyoodka uu farabaan ku hayo dadka ku dhaqan degmada Jalalaqsi iyo deegaanada ku xiran gobolkaasi gudoomiyaha degmadaasi Maxamed Nuur Cagajoof oo la hadlay warbaahinta ayaa xaqiijiyay in maalmihii ugu dambeeyay dad gaarayay 22 qof ay shuban biyood u geeriyoodeen gudaha magaalada Jalalaqsi iyo deegaanada hoos yimaada sidoo kale waxa uu tilmaamay in haatan cudurka ay la ildaran yihiin in ka badan 70 qof oo u badan caruur kuwaas oo la dhigay goobaha caafimaadka ee gobolka shuban biyoodka ayaa dhibaato ugu haya geeridu waxay saacadan maraysaa 22 qof sidoo kale waxa isbitaalka ku jira 10 kale ayuu yiri gudoomiyuhu Cagajoof oo hadalkiisii wata ayaa sheegay in xaaladda degmada ay adag tahay isla markaana ay ka jirto macluul iyo nafaqo darro laga dhaxlay fatahaadii u dambeeyay
waxaa kaloo intaasi ku daray in dadka deegaanadaas ay u baahan yihiin gurmad caafimaad islamarkaana dadku cudurka soo ritay isbitaalada la dhigay aysan ku filnayn daaweyntooda. ugu dambeyn wuxuu ugu baaqay cagajoof hay-adaha samafalka, madaxda dowlad goboleedka Hirshabelle iyo kuwa dowladda federaalka Soomaaliya in gurmad degdeg ah loo fidiyo dadkaas oo u baahan daryeel caafimaad. danjiraha Mareykanka u fadhiya Soomaaliya iyo Mamoto ayaa hal arin ku amaanay Axmed Madoobe, madaxweynaha Jubbaland oo dowladda Soomaaliya khilaaf kala dhaxeeyo. taliska ciidamada Mareykanka Africom ayaa qoraal soo saaray uga hadlay socdaal ay dhawaan magaalooyinka Kismaayo iyo Boosaaso ku tageen taliye General Stephen Townsend iyo safiirka Mareykanka Soomaaliya Donald Yamamoto. qoraalka Africom ayaa lagu sheegay in Townsend iyo Yamamoto ay madaxweynayaasha Jubbaland iyo Puntland Madoobe iyo Siciidani kala hadleen dadaalada gobolka iyo muhiimadda ay leedahay sii wadista beegshashada kooxda Al-Shabaab. waxaan ku ammaanay madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe dadaalada wadajirka ah ee ciidamada ammaanka Jubbaland, Danab iyo xoogga dalka ee Al-Shabaab ku weeraray dooxada webiga Jubba, ayuu yiri Yamamoto ayaa ugu baaqay dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada inay si wax ku ool ah ugu shaqeeyaan sidii ay ula dagaalami lahaayeen cadowgooda guud ee Al-Shabaab. Africom ayaa sheegtay in safarka Townsend uu muhiim u yahay xoojinta xiriirka military ee qotada dheer ee Mareykanka uu la leeyahay saaxiibadiisa Bariga Afrika. dooxada Odogooye ayaa maalintii labaad gubanaysa. wararka ka imaanaya gobolka Sool ayaa sheegay in saacadihii la soo dhaafay uu dab xoogan ka kacay dooxada Odogooye oo ku taala duleedka magaalada Laascaanood ee waqooyiga dalka Soomaaliya. dabka ayaa lagu soo waramayaa inuu haatan ku sii fidayo dhulkeen ah oo ku yaala halkaasi. sidoo kale wararka ayaa sheegay inuu barakac ka bilowday deegaano ku dhow dooxada oo dabku qabsaday, iyagoo hana dadka ay iskaga fogaanayaan deegaanadaasi. wararka ayaa inta ku daraya inay socdaan dadaalo looga hortagayo inuu sii fido dabka, isla markaana ay dhacayaan dabeelo uga sii daraya xaaladda. ilaa ay haatan lama oga khasaaraha rasmi ah u geystay dabkan oo weli ku socda si xawli ah. dabkan ilaa 2 kiiloomitir ahaa. alxamdulillah rabbil caalamiin, ilaahay baa ugu mahadnaqaynaa. waxa weeye reer baadiya intay geljira intuu meesha hilib iyo wax ku karstay siri uu dabku kaga kacay uu ka cararo. hadduu markiiba uu nala soo socodsin lahaa waa ka soo gaari lahaa, laakiin ilaahay baa mahaddaas kale ee noogu guuleeyey inaannu dabkaa daminno. waxaanu galnay howlgal aad u ballaaran oo ah dab kacay. jabka qoriga ilaa iyo Odogooye oo dhan isku baxday. alxamdulillah rabbil caalamiin. dooxada Odogooye ayaa ku taala dhul miyi ah oo ku wanaagsan daaqsinka, waxaana sidoo kale ay ka mid tahay dooxooyinka waaweyn ee ku yaala gobolka Sool. markaana Hargeysa, booliiska Somaliland ayaa gacanta ku soo dhigay nin gacan gudhigla ahaa. ciidanka booliiska magaalada Hargeysa ayaa gacanta ku soo dhigay nin 2 toddobaad ka hor dil u geystay marxuum ku sugnaa degmada Gumar ee gobolka Hood ee Somaliland. tariska ciidamada booliiska ayaa xaqiijiyay qabashada gacan ku dhiglaha oo maalmihii la soo dhaafay baxsad ka ahaa deegaano ka mid ah Somaliland. Cali Muuse Xasan oo ah ninka dilka geystay ayaa shalay galabtii laga soo qabtay deegaanka Caraf oo ku taal duleedka galbeed ee Hargeysa. qaar ka mid ah waxgaradka iyo cuqaasha degmada Gumar ayaa uga mahad celiyay ciidanka booliiska soo qabashada ninkan oo ay sheegeen inuu dil geystay. qareennada Garowe ayaa shaqo joojin sameeyay. qareennada ka howlgala magaalada Garowe ayaa shaqo joojin sameeyay iyadoo maanta maxkamadda darajada koowaad ay xukuntay eedeysanayaal aan haysan sharci yaqaan difaaca. qareennada oo qaarkood suxufiyiinta la hadlay ayaa xaqiijiyay in wasaaradda maaliyadda ku soo rogtay canshuur dheeraad ah. maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Nugaal oo maanta la hor keenay 18 eedeysane oo ku eedeysan kiisas kala duwan ayaysan ka soo muuqan garyaqaan difaacaya eedeysanayaashaasi. eedeysanayaasha waxa ku jiray qaar muuqaal ahaan u muuqday caruur walow aan da'dooda laga horsheegin maxkamadda, kuwaas oo aan awoodin inay afkooda sharciga iskaga hor difaacaan. 2 ka mid ah oo qirtay inay galeen falka lagu eedeeyay oo ahaa mobile furasho iyo dhaawac gashiso ayay maxkamadda ku xukuntay 2 sano xarig ah iyo ganaax lacageed oo dhan $1,000. daawadayaal waa naga intaa warkaad kala socoteen Halku Dhig News.